waxay ka haysatay wiil hore u dhashay ee ka haysatay kaasoo ay ku andacootay kan ana dhalay waxa weeye ma taqaanaa in adeerkay ayaana iga dhalay ay ku andacootay marka yararka qurquraha badan ma sha Allah waxa weeye gabadhii dhashay way tuurtay ha tuurta ma xumo gabadhii dhashay waxa ka sii daran taas waxa weeye reerkoodii iyo cid ay ka dhalatay maan la xiriiray waxaan ka codsanayaa af Soomaali weyn meel kasta joogtaanayno hadda lisanada videogan si share qaraysta meel kasta joogtaan waxa weeye ma taqaanaa meel kasta galiya Facebook iyo YouTube iyo kasta galiya nasiib darradu yani anigu maanta la yaabanahay maaha gabadha waxa weeye nasiib darradu markii aan qoyskooda iyo reerkooda la hadlay waxay igu jawaabeen warniyow gabadha waad furtay war haddaan furay anigu waan reerkii la isku soo celiya ma wado aan mana u baahni aan laakiin muhiimadu waxa weeye ciyaalka ay dhashay ay haysato ay sanayn hadii ay tuuraso tii abooda ku qorto iyana micnihii gaari gacanta way gelinaya taas way iska indha saabeen Soomaali Maxamed aad iyo aad baan idin salaamayaa ciyaalka yararka qurquraha badan ma sha Allah waxa weeye gabadhii dhashay way tuurtay ha tuurta ma xumo gabadhii dhashay waxa ka sii daran taas waxa weeye reerkoodii iyo cid ay ka dhalatay maan la xiriiray kadibna waxay ugu yiraahdeen oo igu jawaabeen war gabadhayda waad furtay anigana waxaan yani aan kala hadlayay waxa weeye in ciyaalku maadaama igu qornay ciyaalkanu midna igu qorna aniga maadaama ay ciyaalkii igu qornayn aba inay ma taqaana igu qorto aba yani aba iyadu haysato taasan ka hadlayay laakiin wajiga wax baan kala kulmay ayadina saacad bay tiri waan tuuray mana ogola inay igu qorto mana ogola inay ma taqaanaa iyadu qaadato marka waxa weeye waa nasiib darro hadda waxaan taagnahay aan booliiska hortoodii maadaama micnii 48 saac ka badan ay maqan tahay oo ay ka maqan tahay iguna tiri ciyaalkii waan tuuray oo markii koowaad ma ahe waa markii saddexaad weeye inay saa uga dhaqaaqdo oo yani familigeedu xitaa ay la og yihiinay waxaan sameeyay oo aan go'aansaday inaan booliiska la socodsiiyo arrinta way soo ku tahay barika malana la qabsanayaa labadayadu waa mas'uuliyad darro ayaan qaadanaa waxay ka haysatay wiil hore u dhashay ee ka haysatay kaasoo ay ku andacootay kan ana dhalay waxa weeye ma taqaanaa in adeerkay ayaana iga dhalay ay ku andacootay haddaba waxa weeye ma taqaanaa nasiib darradu yani anigu maanta la yaabanahay maaha gabadha waxa weeye nasiib darradu markii aan qoyskooda iyo reerkooda la hadlay waxay igu jawaabeen warniyow gabadha waad furtay war haddaan furay anigu waan reerkii la isku soo celiya ma wado aan mana u baahni aan laakiin muhiimadu waxa weeye ciyaalka ay dhashay ay haysato ay sanayn hadii ay tuuraso tii abooda ku qorto iyana micnihii gaari gacanta way gelinaya taas way iska indha saabeen run ahaantii de maanta xaalad halkaas ay maraysaa marka waxaan ka codsanayaa af Soomaali weyn meel kasta joogtaanayno hadda lisanada videogan si share qaraysta meel kasta joogtaan waxa weeye ma taqaanaa meel kasta galiya Facebook iyo YouTube iyo kasta galiya waxaan ka codsanayaa maadaama aan dalka Jarmalka joogo ma aqaani familiyo micnihii sharci haysta ma aqaani aan familiyo sharci haysta oo dad waaweyn oo sharci haysta hadii aad garanaysaan Maxamed Caado Farisaabo hadii aad garanaysaan ugu soo xira hayla soo xiriireen si ay hadayba noqoto la dhacdo in micnihii la yiraahdo war ciyaalka hadii kuwa qortna waa la qaadanaya si ay ayagu aan ugu wareejiyo taas ayaan ka codsanayaa waan islaamay Soomaali weyn meel kasta joogtaanayno waxa weeye ma taqaanaa una soo duceeyo ciyaalkaas yareed inay waxa weeye gabadhii dhashay way tuurtay ha tuurta ma xumo gabadhii dhashay waxa ka sii daran taas waxa weeye reerkoodii iyo cid ay ka dhalatay maan la xiriiray kadibna waxay ugu yiraahdeen oo igu jawaabeen war gabadhayda waad furtay anigana waxaan yani aan kala hadlayay waxa weeye in ciyaalku maadaama igu qorna ciyaalkanu midna igu qorna aniga maadaama ay ciyaalkii igu qornayn aba inay ma taqaanaa igu qorto aba yani aba iyadu haysato taasan ka hadlayay laakiin wajiga wax baan kala kulmay ayadina saacad bay tiri waan tuuray mana ogola inay igu qorto mana ogola inay ma taqaanaa iyadu qaadato marka waxa weeye waa nasiib darro hadda waxaan taagnahay aan booliiska hortoodii
maadaama micnii 48 saac ka badan ay maqan tahay oo ay ka maqan tahay iguna tiri ciyaalkii waan tuuray oo markii koowaad ma ahe waa markii saddexaad weeyay inay saa uga dhaqaaqdo oo yani familigeedu xitaa ay la og yihiinay waxaan sameeyay oo aan go'aansaday inaan booliska la socodsiiyo arrinta ta way soo ku tahay بريكا مالنا لا يقبسنايا لبديدو waa mas'uuliyad daro ayaan qaadanaa waxay ka haysatay wiil hore u dhashay ee ka haysatay kaasoo ay ku anducootay kan ana dhalay waxa weeye ma taqaanaa in adeerkay ayaana iga dhalay ay ku anducootay hadaba waxa weeye ma taqaanaa nasiib darradu yani anigu maanta la yaabanahay maaha gabadha ee waxa weeye nasiib darradu markii aan qoyskooda iyo reerkooda la hadlay waxay igu jawaabeen warniyow gabadha waad furtay aad war haddaan furay anigu waan reerkii la isku soo celiya ma wado aan mana u baahni aan laakiin